qof walba inaga naga mid ah inuu wax ka ogaado oo u barto waa waajib ay ku tahay sababta oo ah cibaadadu ma ahan qofku habdhaqan isagu iyo sida uu u fahmo inuu isaga wato laakiin cibaadadu waa itibaac nabigeena sallallahu alayhi wasallam wa baraka calayhi aanu ku raacayno ilaahayna uu inoo jideeyey subxaanahu wa tacaala walidaalika walaalayaal axkaamta siyaamka khudbadu inta badan waxay ka hadlaysay waxyaalaha soomka buriya ayay khudbadu ay ka hadlaysay waxyaalaha soomka buriya marka waxay u qaybsamayaan laba qaybood ayay u qaybsamayaan qaybina soomka waxay ka burinayaan fadligii iyo ajirkii iyo barakaadkii iyo khayrkii faraha badnaa oo qofka saa'imku uu soomkiisa ka heli lahaa ayay qaybu ka burinayaan oo soonkii waajibkii uu ka dhici laakiin darajaadkii iyo nafaxaadkii iyo khayrkii faraha badnaa oo soomka nabigeena uu ku tilmaamay sala allahu calayhi wasalam ma helayo waxyaalaha noocaasi marka maxay yihiin oo soomkiina qofkii uu u ansaxayo oo waajibkii uu ka dhacayo laakiin wax khayra iyo wax baraka ah uusan soomkiisii uusan ka helaynin waa soomka nabigeena sala allahu calayhi wasalam uu ku yidhi xadiiskii bukhaari uu saxiixiisa uu ku warinayay man lam yadac qawla azuuri waalcamala bih falaysa lilahi xaaja fi an yadaca طacaamahu wa sharaabah wuxuu yidhi nabigeenu sala allahu calayhi wasalam qofku hadduusan dembiga iyo hadalka beenta uusan ka teginin ilaahay wax dana kama lahan cuntadiisii iyo cabitaankiisii uu ka soomay yacni waxaa weeye waa qof ilaahay soomkiisii uusan danaynaynin waana ayaan darro weyn maantoo dhan adigoo gaajaysnaa maantoo dhan adigoo harraadsanaa haddana in lagu leeyahay soomkaagii ilaahay ma danaynayo meel ka soo qaad soomkaagii ma lahan in haddana lagu yidhaaho waa nasiib darro qofku waxaa laga yaabaa hal dhibac oo biyo ah oo soomka ka burinaya inuu ka gubanayo ka walwalayo iska ilaalinayo laakiin maantoo dhan uu laqayo oo uu cunayo hilibka muslimiinta oo xantii uu wado xantii waa dhunjinahay hilibka muslimiinta ee acraashoodii maantoo dhan waa laqlaqahay waa wadaa laakiin hal dhibacoo biyaha soomkiisa ka burinaysana waa iska ilaalinaysaa liannahu soomkii uu burinayaa dhibacdaas laakiin iskama ilaalinayo waxa uu laqayo uu cabbayo oo xanta muslimiinta beenta qabyaaladda iyo wax walba oo ilaahay qofka ka fogeynayo walidaalika walaalayaal soomka culimmadu waxay u qaybiyaan saddex qaybood sida imaam alghazali oo kale raximahu llahu tacaala fi kitaabi ixyaa culuumiddiin soomka iyo dadka soomani waxay u qaybsamayaan saddex qaybood sawmu alcawaam wa sawmu alkhawaas wa sawmu khawaasi alkhawaas sawmu alcawaam waxa weeye waa qofku inuu habka uu u soomayo uu ka dhigto cuntada iyo cabitaanka inuu iska ilaaliyo bis wax kale uusan iska ilaalinin yacni mar walbaba kuma xisaabtamayo waxani amay dhaawac ay soomkaagii u keenaan wixii uu soomkiisaas cuntada iyo cabitaankaas iyo xaaskiisa inuu la seexdo uunbuu iska ilaali mooye arrimaha kale soomkiisa dhaawacaya oo nabigu uu yidhi sala allahu calayhi wasalam ilaahay dan kama lahan gaajadiisa iyo harraadkiisa iskama ilaalinayo soomkaas maxaa la yidhaha sawmu alcawaam waa qaabka inta badan sida guud dadka ay u soomaan sida guud oy dadku u badan yihiin qaabka ay mafhuumka ay soomka ka haystaan waa sida ay soomka mafhuumka ay ka haystaan maxaa yeelay qofkii beenuu iska sheegaya indhihii kama soomayo carabkii kama soomayo lugihiiyo gacmihii kama soomayo calooshii bisaa soontay calooshii bisaa soontay dhegtu ma soomana indhuhu ma soomana luguhu ma soomana gacmuhuna ma soomana waa soomka nabigu yidhi ilaahay ma danaynayo sala allahu calayhi wasalam
khatarta ugu badanna waxa weeye xilligan casrigeena qofka ka luminaysaba inuu waqtigiisa soomkan saacadihiisu waa qaali saacado qaali ah dhex dabaalanayna walaalayaal saacado qaali ah way soomka saacadihiisu daqiiqad walba ku soo marta bisha ramadaan waa qaali malaayiin dollar lama siisto hal daqiiqo ramadaan kamid ah malaayiin dollar lama siisto walaalayaal adduunyadan oo dhan haddii ilaahay ku aqbalo daqiiqadaas waa daqiiqad aad xuquuqdeedii haddaad ilaaliso oo habkii nabigeena sallallahu alayhi wasallam yiri ha loo soomo aad u soomto waa daqiiqad aan lagu miisaamin adduunyada iyo dollarka diyaalo oo dhan hal daqiiqo aan lagu miisaami karin way walaal laana waxa weeye daqiiqadaas oo aadaabta soomka aad ilaalinayso waxaad helaysaa sacaadatu dunya wal aakhirah fayajma'u Allahu laka bayna an-na'iimayn na'iim ad-dunya wa na'iim al-aakhirah wa hal saac aad ku helayso na'iimkii adduunyo iyo nicmadii aakhiro aad ku helayso wa hal saac hadaad aadaabteeda soomka hadaad ilaaliso inta aad soomatay iswaardiyeyso ya Allah hadaad tira ilaahay uu ku aqbalayo adduunyada khayrkeedii aad ilaahay weydiisanayso oo cusbada ugu yartahay guriga haddii kaa go'do aad ilaahay weydiisanayso ilaahu cusbadii guriga iga go'day wax yar iyo wax weyn ba ilaahay weydiisanayso ya oo ilaahay ku aqbalayo laana soomka ayaad ixtiraamtay soomka ayaad xushmaysay saacadihii ramadaan ayaad u aragtay saacado qaaliga inay yihiin oo wax lagu miisaami karo aysan jirin marka saacadaha qaaliga ah haddaan ku dayacno walaalayaal safaxaadka facebooka inaan rogrogno haddaan ku dayacno ka war oo bahalkan aan dul taaganahay ilaa 2 saac 3 saac isagii aan dul taaganahay maantoo dhan aan rogrogayno wax faa'iidana aanan ka rogrogayno qofku hadduu dee uu markaa akhbaarta caalamka uu ka dhageysanayo oo wararka uu ka dhageysanayo ama mas'ale cilmiya uu ka baaranayo mushkilo ma lahan laakiin inta badan dhalinyaradu ha u badnaadaane waxa loo adeegsadaa hab khaldan ayaa loo adeegsadaa habkaas khaldanina waa hab dhaawacaya soomkaaga waa hab dhaawacaya soomkaagii in cawraadkii dumarkii qofka uu ka fiirsanayo cawraadkii ragga uu ka fiirsanayo dad iscaayaya oo maaragtay meesha propaganda soo geliyay iyo caay iyo aflagaado inuu dhageysanayo waxyaalo aan dhigaha wanaagsanay oo qof muumin akhlaaqdiisa aan u habboonayn oo qof muumin dhaqankiisa aan ahayn inuu maantoo dhan dul taagan yahay waa waxyaalaha keenaya qofkii inuu saacadihiisii qaaliga ahaa ee ramadaan inuu markaa uu iska dayacay marka taasi waxaa la yidhaha soomka la yidhaaho sawmul cawaam soomka labaad waa sawmul khawaas dad gaara oo dadaalay oo dhexda xirtay habka ay u soomaan soomkaas wuxuu yahay waa as-sawmu can kulli ma nahaa Allahu ta'ala wax walba oo ilaahay carag gelinaya inuu qofku iska daayo wax walba oo ilaahay carag gelinaya inuu qofku iska daayo oo dhagihiisu ay soomaan oo carabkiisu uu soomo oo lugihiisa indhihiisu ay soomaan kaas weeye midka fadaa'ilka iyo barakaadka khayrka lagu sheegay ramadaan midka helaya waa midka nabigeena sallallahu alayhi wasallam qofka soomkiisa uu ku tilmaamay la khulufu fami saa'im adyabu 'inda Allah min riih al-misk ya qalalka afkiisa uu qalalaya xayaabada afkiisa saaran ayaa miskiga uduga uga sii caraf badan ilaahay agtiisa qofka saa'imka ah oo aadaabta soomkiisa ilaaliya waa midka nabigeena uu ku yiri sallallahu alayhi wasallam ثلاثة لا ترد دعوتهم سدح دعادودي لما رديو سدح ناس وحكملها الصائم حتى يفطر قفك الصوم دعادي سوى الله أكبر واقفك قفك الصوم ودعادي سي على سور الدينين ما قفك الصوم كيس اسكت يعيا ما قفك وحد دونا اسكفر صدو حلال يا حرام يعني اللي سي على كب آبية للمياه ما قفك عرب كيس وحد دونا يسجى هذا الأيام ما أهم قفك إلهي كل دورسنا إلهي كبق يوم وحشانة يا إلهي كحشانة وصومكيس إلى شنة كاسوي من النبي صلى الله عليه وسلم بركات كاس نفحاتك وكتل مامي صومك أمرك وحليلا وصوم الخواص إلهي هنقدر كوا إلهي وأقبله وصوم كود إلهي سبحانه وتعالى وجعليه وكوا الله حرينا يه وإلهي سبحانه وتعالى نظر الرحمة وكفيرنا يه إلهي هنقدر سبحانه وتعالى صومك سدحاد وحليلا صوم خواص الخواص صوم خواص الخواص وهو الصوم عما سوى الله ما أنت أن إلهي هم بقلبك كها يا مراقبة إلهي
حتى الدنيا قلبي سكما صد عيش قعمها إنه كقبته مويل قلبي الدنيا كما صامين سكما صد عيش إلهي بكم مقيه إلهي كتجي إلهي عظمتي جلالتي مويه وحكى لقلبي سواك إلى الشلاء وضد إلهي وكرامي ضد إلهي وكرامي وكارة قافك يسوم يوميو وقلبي حتى إلا ورد ابنه ولا جتجي إلا وردي قلبي يلا وردينا قلبي إلى لنا هي إلهي مراقبتي سي عظمتي بس وضد نوادره يا إلهي وكرامي ضد نوادره أي الصوم كالنوع عاس وكلاه إلهي وكرامي سبحانه وتعالى ولا المركا وحيالها هذا أن سوشيغلي وحيال الصوم كداوعيه وأجر كيسي هي بركات كيسي داوعيه لكن waxa jira waxyaalo soomtiyo dhanba eber ka dhigaya oo baabiinaya oo qofku hadduu sameeyo de waxa jirana uu san helaynin soomkiina dhanba uu ka buray oo waajibkii xataa uu san ka dhacaynin kuwaas waxa ugu weyn muftiraadka jimaaca ugu weyn jimaaca waxa laga jeedaa maalin ramadaan qofku inuu xaaskiisa isticmaalo oo xaaskiisa uu la seexdo maalin ramadaan ayuu xaaskiisa ku dhacay oo xaaskiisa uu isticmaalay kaasa ugu weyn mufdiraatu saa'im walidaalika qisad dhacday xilligii nabigeena sallallahu alayhi wasallam oo mas'alada ku saabsan ayaa khudbada aan ku soo qaadanay qisadaas Bukhari iyo Muslim labaduba ay warinayaan saxiixaynkooda ay ku wariyeen maalin ramadaan ayaa nin saxaabiyo nabigeena u yimid sallallahu alayhi wasallam markaasuu yiri yaa rasuulallahi halaktu rasuulka ilaahay maanta waa halaagsamay maanta halaag ayaa igu dhacay waa halaagsamay rasuulku wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam maxaa ku halaagay wuxuu yiri waqactu bimraati fi ramadaan islaantii ayaan ku dhacay maalin ramadaan ayaan ku dhacay islaantii nabigeena sallallahu alayhi wasallam oo baraka calayhi wuxuu ku yiri ma awoodi kartaa adoon inaad xurayso wuxuu yiri maya ma awoodi kartaa 2 bilood oo xiriir ah inaad soomto wuxuu yiri ninkii maya ma awoodi kartaa 60 miskiin inaad quudiso markaasuu yiri ninkii maya waa nin sabool ahaa isagoo markaa qisadii nabiga sallallahu alayhi wasallam ay socoto ayaa nin ansaari dambiil weyn oo timiru ka buuxdo uu nabiga u keenay sallallahu alayhi wasallam oo baraka calayhi dambiishii nabiga sallallahu alayhi wasallam ninkii intuu dhiibu yiri wararado kafaaradii kugu waajibtay isaga bixi 60 miskiin u qaybi oo kafaaradii kugu waajibtay u qaybi dambiishan timirta ku jirta ninkii wuxuu rasuulka ilaahayow walladii ba'athaka bil haqq allihi xaq ugu soo saaran ku dhaarta ma bayna laabatayha ahlu baytin ahwaju minna ilaahi xaq ugu soo saaran ku dhaartaahe labada buurood oo magaalada Madiina ay u dhaxayso qoys degan oo naga dhibaato badan oo naga sabalsan ma jiro yaan ku sadaqaysan rasuulkeena macid aniga iga niidata ayaa magaalada degan la buurood oo magaalada u dhaxayso Madiina qoys degan magaalada oo iga sabalsan ma jiro ilaahu kugu dhaarta xaq ugu soo saaray rasuulku wuxuu yiri orado caruurtii u geen hadday sidaata orado caruurtii u geen marka xadiiskaas wuxuu na tusaaleynayaa oo na barayaa bil ramadaan maalin ramadaan qofkii xaaskiisii ku dhaca inay ku waajibayso al-kafaara al-udma kafaara aad u weyn kafaaradaas oo ah 2 bilood oo xiriir in laga doonayo iyo maalintii inuu soo qadeeyana waa laga dooni 2 bilood oo xiriir inuu soomana waa laga dooni waliba 2 bilood isagoo haddii hal maalin oo kamida uu afuray waa soo bilaabaya tan waa ku soo celinaya waa inay xiriir yihiin 2 bilood waa inay xiriiraan ayaa laga maarmaan maxaa kuu geeyay maalin ramadaan kuu geeyay habeenkii oo dhan ilaahay kuu fasaxay subhanahu wa ta'ala ya habeenkii oo dhan laano ilaahay shay ma xarimo illa badilkiisu xalaal ilaahay nasiib wahada min fadli ilaahi wa rahmatihi wa ihsani وحدي دينتو أي كاجو جيسو وحكلو بدل كيسا دينتو كوبا نيس مالع لا دينتو كوبا نيس إنه يوم باشيدان كدب أرديني الدنيا مويه وحارانتي كدب أرديني وحول بو دينتو أي كاجو جيسي وح بديلو كشرف بدن أي دينتو كوبا نيس
وكان بدين في ساعة قف كاس مركز لبب بلود على جدول وحيل إنه صامه هدوسا أودي كرين ووايل نمدرتين أما حنونا إيجران وسن لسومي كرينين لحدا مسكين أي لدوني إنه سيوم مسكين والبهلكم براشنا أي قودنا هي أو سينا هي تان نفتي هدوسا أودي سيدا منك سحابي قصدي سكوجرتين لحدا كي هدوسا هيلي كرين صام كينو وسن أودين وظروف حنون يوحي جيران هو يلمو qoortiisa madaxiisa un bay saarnaan kafaaradaas maalintuu awoodaha la sugayo iska bixinaha oo xoolaha uu helo oo lixdan miskiin uu qoodin karo maalintaasaa la sugayaa maalintuu helo un bay markaa kafaaradaas ay ku waajibeen waxaa kaloo sidaas oo kale ka mid ah waxyaalaha soomka burinaya inzaalu lmani sawaaun kaana alinzaalu min alrajul aw ilmar'a qofkii mani haddii markaa ay ka timaado ama ninkii ha noqdo ama haweeney ha noqoto maniga haddii ay timaado soomkaasi waa buray manidaasi weliba dariiqa ay ku timid waa dariiq maalan qofkii xaaskiisii ayuu taataabtay isagoo markaas aan hawshii weyneed aan samaynayn xaaskiisii uu iska taataabtay oo maalin ramadaan sooman ama waa dhunkooday sidiiyaa maniga uga timid soomkaasi waa buray marba haddii manigu ay kaa timid ama gabadhii ha ka timaado ama ninka ha ka timaado soomkaasi waa buray dembina wuu ku dhacay qofkaasi waa inuu ilaahay u toobad keeno maalintaasna uu dib u soo qadeeyo laakiin kafaaradii weyneed kuma waajibayso waxaa ku waajibaya maalintaas inuu dib u soo qadeeyo ilaahayna u toobad keeno maxaa yeele soomka in la buriyo waa xaaraan soomka in la buriyo si kasoo ula kac ah aada soomkaagii aada u baabi'iso waa dembi jariimo wa jariimadaas marka waxay u baahan tahay ilaahay inuu uga laabto oo ilaahay u toobad keeno maalintaasna uu dib u soo qadeeyo ayaa markaas waajib ku noqonaya haddii marka manidu aysan qofka uga imaanin taataabasho oo xaaskiisii taabtay ama uu dhunkooday haddaysan uga imaanin ee sababo kale ay uga timid tusaale ahaan qofku waa hurday maalin ramadaan isagoo iska hurdaya waa riyooday asagoo riyoonaya ayaa manidii ka timid ama gabar ha noqdo gabar ha riyootay ama nin ha riyooday isagoo hurdaya maalin ramadaan maniyaa ka timid soomkiisi waa saxiix waa u jiraa leanna qofkani waa qof iska hurdaya oo caqligiisi maqnaa weyn walidaalika xadiis nabigeena sala allahu calayhi wasalam bukhaari uu warinayo ayuu nabigu wuxuu ku yidhi sala allahu calayhi wasalam ina allaha tajaawaza can ummatii maa xadasat bihi anfusuhaa maa lam tacmal ilaahay ummaddeeda wuxuu u dhaafay waxa qalbigooda uu ku sheekaynayo haddaysan ficilkii samaynin marka wixii qalbiga aad uga riyoonaysay laakiin ficil ahaan aadan samaynin waxay ka mid tahay waxyaalaha ummadda uu sheegay nabigeenu sala allahu calayhi wasalam in loo cafiyey waxaa la mida sidaas oo kale ama telefoon ayaad kula hadlaysay xaaskaagii telefoon aad kula hadlaysay waa hadalla idin dhex maray wanaagsan oo macmacaan sidaasaa marka qofkii mani uga timid mani ay uga timid wuxuu taabtana ma jiraan xaaskii ma taabanin ma salaaxin ma dhunkoonin hadalla macmacaan oo telefoonka uga hadlayay saasaa manidii ay uga timid iyaduna waxay ka mid tahay waxyaalaha xadiisu nafsiga ah oo soomkii iyaduna sidaas oo kale aan burinaynin ayay la mid tahay xadiisu nafsiga oo waxyaala qalbiga qofku uu iskala sheekaystay laakiin wax ficil oo taabasho ay manidii aysan uga imaanin laakiin arrimaha noocaas oo kale ah waxaan uga hadlaynaa dhinaca soomka inuusan burayn mooye qaabkaas in loo dhaqmo ma habboona adigoo sooman waxyaalo manidii kaa keenaya inaad ku hadasho ayaanba wanaagsanayn xataa xaaskaagii laguma ogola leanna waxaa jiray xadiis bayhaqi uu sunankiisa ku warinayo oo nabigeena sala allahu calayhi wasalam anna rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nahaa can ishaabi alqubla nabigu sala allahu calayhi wasalam dhunkooshada ayuu xarimay telefonkiina waa la mid dhunkooshadu xaaskaagii inaad dhunkooto oo salsalaaxdo ayuu nabigu xarimay xataa haddaysan maniyu kaa imanin leanna waxaad dhici karta inta maniyu kaa timaado soomka inaad dhaawacdo ood buriso marka telefoonkuna waa la mid xagga soomka inuusan kaa burayn uunbaa dhinaca uga hadlaynin laakiin xagga dhinaca kale waa dembiba lama ogola xaaska inaad salsalaaxdo xataa iyadoon mani kaa imaanin inaad xaaskaagii salsalaaxdo ama telefon aad maaragtaa hadalla macmacaan aad ku tiraahdo dhinacaas mas'aladu dembigay ka tahay lama ogola dhinacaas lama ogola oo xadiidka bayhaqi uu nabigu sala allahu calayhi wasalam uu ku diiday warakhasa
للشيخ odaga waayeelka wuxuu yiri nabigu sallallahu alayhi wasallam haduu xaaskiisa dhunkoonayo maalin ramadaan dib ma lahan uu yiri nabigu maxaa yeelay لأن الشيخ يملك إربة odagu waa iscelin karaa uu yiri nabigu sallallahu alayhi wasallam laakiin ninka dhalinyarada ah waxa laga yaabaa inuu ku boodaba islaantii maadaama shaawadiisa ay xoog leedahay inuu booda dhici karta laakiin odaga nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri isagu waa iscelin karaa waa qof khibrad badan soo maray waa qof waayeel noqday shahwadiisina sidii hore aysan u xoog badnay si xoog leh aysan u xoog badnay marka dhinacaas mas'aladu kama banaano dadka dhalinyarada nabiga sallallahu alayhi wasallam muqaasalada iyo xaaskiisa iyo telefoon maragtaa hadallo macaan lagu sheekaysto ama atiraaho waan ku salsalaaxiyo mini iyadoo iga imaanayna waa ku dhunkoona maalin ramadaan dhinacaas ma la ogola dhinaca masalada dhinacaas lama ogolo xadiis ku soo arooray oo nabigu uu ka nahiyay sallallahu alayhi wasallam wa baraka alayhi waxa sidaas oo kale la mid ah walaalayaal waxyaalaha muftiraatu saa'il qofka jawfkiisa inay ku dhaadhacaan gudihiisa ama cabitaan ha noqdo ama cunto ha noqoto ama wax kale isgeliyay ha noqoto lama ogola waxyaalo maaragtaa ay isgelinayo qofku cunto ama cabitaan gudaha u dhaadhacaya ayadana waa xaraam soomkina waa burinaya maxaa yeelay ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi wakuluu washrabuu xataa yatabayana lakum alkhayd alabyadu min alkhayd alaswadi min alfajr cuna caba ilaa laga gaaro salaada subxiga fajarka uma atimu asiyaama ila alleyl ka bacdina soomka waa inaad taam yeeshaan oo cunitaanka iyo cabidii aad joojisaan marba haddii fajarka uu dilaaco oo waagu uu bariyo marka cunto iyo cabitaan iyo waxyaalaha waxaa lagu ogol yahay muftiraatu saa'im inta habeenkii uu baaqi yahay bis habeenkii inta uu baaqi yahay bis ayaa lagu ogol yahay haddii markaa daawooyinka la isticmaalayo oo kale maalan qofkii sankaa xanuunaya daawa dhakhtarka u soo qoray markaasuu daawadii isku shub daawadii waa dhaadhacaysa gudahay u dhaadhacaysa ayadana soomkii waa burinaysa waxyaalaha soomka burinaya ka mid tahay ama qofkii bawaasiir uu qabaa xanuunka bawaasiirka uu qabaa marka goojaa loo soo qoray dabadii ayuu isaga dhibcinahay dabadii uu ku dhibciyey soomkii waa ka buray wixiiba jawfka u dhaadhacaya oo dhan soomkii waa ka buray amaa isha daawada hadduu qofku isaga sugo maadaama ishii jawf furan oo gudaha hoos ugu furan oo duleelo uusan jirinin ma burayo calaa madhab alimaam ashaafici ilaa madhabta xanafiyada mooyee madhabka imaam shaafici siduu ku tegey ishu ma burinayso daawo in la isaga shubo laakiin dhegtu waa burinin daawo la isaga shubo ama afka daawada aad ka qaadatid ama dabada aad ka qaadatid waa burine laakiin isha daawada lagu shubayo ma burinayso cinda alimaam الشافعي رحمه الله تعالى لأنه جوف مفتوحا مجرى أما عربضها قفكو وعربضين يسوى صوما تاسوي بنانتها محايري شيء عربض قدها وأودع دعي وحيدها وقاضة يبا لكن شيء مركب أصوم كبرهنا يوحشر بها ميل هراء الدليشي مركب داود اللي سيشغل سيدا سنكا دبضا يوحي لمدي يدقه لكن واحد قصب اللي قد دليلين يهديه سيدا عربضي iyadana soomka ma burinayso waxaa la mid ah faleembooyinka qofku markaas uu u qaadanayo daawo ahaan uu u qaadanayo laakiin haddii ay tahay faleembadu ibarka la yidhaha ibaru taqdiya hadday tahay faleembooyinka laysku quudiyo oo nafaqada ah oo nutritionka loo qaadanayo haddii wuxuu nutrition ay yihiin oo qofku wax lagu quudinayo ay yihiin raashinka booskeedii istaagi markaas waa burinaysa soomka booskii raashinka ilaa qofkii wuxuu kaga maarmahayaa raashinkii faleembooyinka la isku quudinayo raashinkii iyo cabitaankii ayuu kaga maarmahaya taasi soomku waa burin laakiin middan daawada ah oo markaa aan loola jeedinin quudin iyo nafaqayn aan loola jeedin taasi soomkii markaas ma burinayso walidaalika waxaa loo baahan yahay walaalayaal soomkeenna inaanu ilaashanno axkaamtiisana aan mar walbaba aanu tixgelinno oo aanu baranno waxaa sidaas oo kale iyadana aan dhib lahayn qofku inuu dhiig uu shubo asagoo sooman maalan tusaale ahaan qof qallin maaragtahay saaladii loo wado ayaa la yidhi waad sooman tahay war dhiigga noogu deeq waad ugu deeqaysaa dhiiggii mana kaa burayo soomkaagina التبرع بالدم حالة الصيام وجائز وبنانته لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم
maxaa yeelay nabigu waxaa ka sugnaaday inuu istoobay oo dhiig uu iska keenay isagoo sooman ayaa nabigeenna la toobay oo dhiig laga keenay nabigeenna sala allahu calayhi wasalam xadiiskaas marka wuxuuna tusinayaa attabaruc bidami jaa-is xaalata siyaam qofku isagoo oo sooman dhiig wuu ku tabaruci karaa wuu ku samafali karaa soomkiisiina saxiix ayuu u yahay marka intaas ayaan rabnaa axkaamtii soomka inaan kusoo gaabinno ilaa 5 ilaa 10 su-aalood ayaan u furaynaa jamaacada oo khuseeyo mawduuca soomka insha allahu tacaala ilaa 10 daqiiqo qofkii su-aal qaba oo mawduuca soomka markaas waafaqsan qofku haddii isagoo baawasiir qaba dhiig hadduu ka daato ayuu yidhi walaalkaa su-aasha maragtaa ina weydiiyey baawasiir qofku hadduu qabo oo dhiiggu markaa uu ka daadanayo waxay la mid tahay masaladii hadda aanu sheegaynay dee dhiigga kas ayaaba laysaga keeni karaa adigoo qof u shubaya waa tii hadda aanu sheegaynay qof xanuunsanaya adoo dhiig u shubaya ama adoo xanuunsan ayaad dhiig iska qaadi kartaa marka wixii dabada ka socda bawaasiirka dhiiggaasi ma burinayo soomkii waa kuu jiraa dhiiggaas socda ama kas isaga keen ama isagu ha iska yimaado waa isla mid dhiiggu soomku ma burinayo midda kale su-aasha labaad oo ah cadayga qofka sooman cadayga calaa madhab alimaam shaafici waa karaahiyo wixii bacda zawaal wixii ah sida uu ku tegey imaam ashaafici raximah llahu tacaala isagoo u daliishanaya xadiiska ah la khuluufu fami saa'im adyabu cinda allaahi min riixi ilmisk qofka sooman xayaabada afkiisa saaran ayaa ilaahay agtiisa uga caraf badan miskiga maxaa yeelay waa raad ka dhashay cibaado ka dhashay sida qofka wuxuu kaleu imaamu shaafici u daliishadaa qofka shahiidka ah lama mayro oo dhiiggiisii ayaa lagu aasaa qofka shahiidka ah leanna waxaa weeye dhiiggiisa nabigu muxuu ku tilmaamay sala allahu calayh wasalam shahiidka riixulmiski waa uga caraf badan lama mayrayo qofka shahiidka marka sidaasoo kale wuxuu yihi imaamu shaafici bacda zawaal yacni xilliga duhurkaba hadduu dhasho cadaygu waa karaahiyo laakiin wixii ka horeeya waktiguu doono ayuu qofku cadaysan karaa hada wallahu aclam niyada soomka habeen walba in la niyeysto waa waajib waxaa jiray xadiis daaraqudni uu sunankiisa ku warinayey oo nabigeena uu yidhi sala allahu wasalam wabaaraka calayh man lam yubayit الniya falaa siyaama lah qofka hadduusan habeen walba uusan niyeysanin oo niyadii habeenkii uusan ku barinin wax sooma oo ka ansaxaya ma jiraan uu yidhi nabigu sala allahu calayh wasalam marka dadka qaar ayaa waxaa laga yaabaa inay aaminsan yihiin oo masaladan u aaminsan yihiin hal maran isku jumlaynayo oo habeenku markuu dhasho ayaan waxaan ramadaankao dhan inaan soomi doono 30 ramadaan ayaan iska niyeysanaya habeenka hore halkaas niyaana iiga filan taas waa laga wanaagsan yahay hal niyo kaagama filan maxay leedahay noolaanaysaba ma ogid inaad berri habeen dambe gaarayso waxaadan marka gaarin inaad sii qorshaysato ood sii niyeysato waxaadan ogeyn inaad gaarayso ma ansaxayo taasi walidaalika habeen walba waa inaad niyeysato ha niyadii haddaad halmaanto sida saa'ilku hadalka isagu u dhigay niyadii haddaan halmaamo yidhi haddii niyadii aad halmaanto soomkaasi kuuma jiro laakiin waxaa waajib kugu noqonaya imsaak yacni inaad qof sooman oo kale muuqaalkiisi yeelato waxna ma cabbi kartid waxna ma cuni kartid waad imsaagi maalintaasna dibaad ka soo qadaynayo wallahu aclam sheekhan gabadha xaamilada ah iyo gabadha carruurta nuujinayso waa isku xugun laba mas'alo ayaa loo kala qaaday gabdhahaas xaaladooda
waxa ay u baqeen ma naftooda waxay la soo milaayeen yani nafaqa darro gabadhii xaamilada maalan waxaa laga yaabaa inay nafteeda uga baqdo hadday soomto in nafaqa darro ay ku dhacdo tii nuujinaysay waxaa laga yaabaa inay ka baqdo carruurkan hadday nuujiso in nafaqa darro ay ku dhacdo hadday naftooda marka u baqaan waa afuraya oo sharcigu wuxuu u ruqseeyey inay iska afuraan yuriidu allaahu bikum alyusr walaa yuriidu bikum alcusr ilaahay wuxuu idinla dooni fudayd laakiin culays ilaahay idinlama doonayo wamaa jacala calaykum fi ddiini min xaraj diintana ilaahay culays kama dhigin marka gabdhahaas dadka loo ruqseeyey ka mid yihiin hadhowna waa soo qadaynayaan wax raashinana lagama rabo hadday naftooda ay u baqeen laakiin hadday carruurtooda u baqeen oo sababta ay u afurayaan ay tahay carruurta inay u cabsadeen ayadana sidaas oo kale ma soomayaano waa ruqso sharcigu waa u ruqseeyey maalintaasna waa soo qadaynayaan raashinna waa lagu leeyahay fidyo mar haddii ay carruurta ay u baqeen hada wallahu aclam sheekha wuxuuna weydiiyey qofku haddii niyadii uu halmaamo laakiin uu suxuurtay see la yeli oo suxuurkaas marka uu ula jeedo inuu berri uu soomayo suxuurkaas wuxuu ula jeedaa berri uu soomayo dee qofku hadduu suxuuranayo mar walba waxaa la fiirinaa waxa uu u suxuuranayo muxuu kala jeedaa hadduu suxuurta u suxuuranayo uu ula jeedo berri inaad soomto ayaad u suxuuranay iyadaaba niyo ah dee waaba niyeysta ilaa suxuurta qofka u suxuuranayo haddii qalbiga uga jirto waxaad suxuurtan u cunayso waa suxuurtii soomka berri iyadaaba niyo ah waaba niyeystay marka taa way wallahu aclam يعني مو مليين كان ساحدي وكان كسو كعي وجود اللي كان كسو بلد وكان مدينة مدرب كي أسك مدوّده مدرب وجود مركب واحد عبو أما هان ممكن يكونوا بنا qofku wuxuu leeyahay saa'ilkani waa soo kacay inuu hurday waa soo naxay marka waxaan u maleeyay habeen soo saas ma qoraxda inay dhacday ayaan u maleeyay marka waa iska cunay waa iska cabay qofkaas waxa waajib ku noqonaya inuu soomkaas uu dib ku soo qadeeyo laana qaacida fiqhiya ayaa jirta oo dhahaysa la ibrata bidhanni albayyin khata'uhu la ibrata bidhanni yani malo lama fiirinayo albayyin khata'uhu gafkiisi uu cadaaday laana adiga waxa ku cadaaday inaad khaldantay maladaadii waxa ku cadaaday inaysan sax ahayn marka waxa waajib noqonaya inuu soo qadeeyo wallahu a'lam walaalkan wuxuu leeyahay dhegta haddaan iyadoo xanuunaysa aan suuf geliyo soomkaygii muxuu noqon suufkaas waxaa la fiirin laba arrimood loo kala qaadi xaddu daahir miyuu suufkaasi ku eg yahay mise daahirkii uu dhaafay oo guduhu u dhaadhacay labadaasaa loo kala fiirin haddii suufku xaddu daahir uu ku eg yahay xaddu daahir maxaan ula jeednaa xaddu daahir waxaan ula jeednaa qofka kula fadhiya dhegtaada intuu ka arki karo qofka kula fadhiya dhegtaada intuu ka arki karo intaas haddii suufku uu yahay falaa ba'sa soomkiisii waa u jiraa laakiin intaa hadduu suufku sii dhaafay oo gudaha iyo daakhilka usii dhacay soomkiisii wuu buray hadduu qofku uu xasuusnaa soomka uu kas u yeelay waxaana mar walbaba isxasuusinaynaa arrimahan soomka burinaya oo aan sheegaynay waxaa shardiga qofku inuu soomkii xasuusan yahay amaa qofku hadduu halmaamo مثلا waa cunay waa cabay muxuu isu maleeyay sidii maalmihii shacbaan uu la qabsado wuxuu isir maba soomanid mararka qaarna way ku dhacdaa dadka qaar waxaad arki laba goor saddex goor markuu biyaha dhunjiyo soo baraarugo oo leeyahay bismillaahi laba soomanid qofkaasoo kale waxa way soomkiisii waa u jiraa maxaa yeelay nabigeena sala allahu calayhi wasalam man akala aw shariba oo nasiya falaa qadaa calayh nabigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu yihi qofkii cuno cabba oo ishalmaama wax qadaa oo laga doonayo ma laha wax qadaa lagama rabo fa inamaa adcamahu allaahu wasaqaah
ilaaha waraabiyey ilaaha quudiyey uu yidhi nabigu sala allahu calayh wasalam marka taasna waan isxasuusinaya walaal wuxuu leeyahay saacadda u dambaysa suxuurta oo imisa walaal kalena wuxuu leeyahay khudbada hadda waxaan soo aragnoo dhahay qofka jimaaca ku dhaco iyadoo maalin sooma oo xaaskiisa u tago waa la sheegay in laga rabo inuu 60 maalmood oo xiriir oo soomo haddii 60kaas maalmood uusan awoodin badarka haddii uusan awoodin la dhintay qoortiisuna ay suran tahay xukunkiisa muxuu noqon karaa haddii awlaad ay ka dambaysid ma bixi karaan waa su-aal laba su-aal muhiim waaye horta suxuurta waqtiga ugu dambaysa aniga hadda kama jawaabi karo leanna waqti waa isbedbedelahay haddaan hadda anigu gooyo oon idhaaho suxuurta waxaa ugu dambaysa xilliga la suxuuranayo 10 saac iyo intaasoo daqiiqadood waxaa dhici karta in waqtiga haddana soo hormaro 2 maalmood ka bacdi inuu haddana dib maro marka waxaa wanaagsan qofku mar walbaba saacado waxaa jira mujarab ah oo aad loo tajribeeyey saacadahan alfajri waa saacado la tajribeeyey hadda 10 saac iyo 38 daqiiqo ayaa ugu dambaysa suxuurta berri oo kale 10 saac 38 daqiiqo waa caawo kale aa ugu dambaysa habeen dambe haddana daqiiqada ama ka jarmaysa ama ku darsoomi karta marka qofku mar walbaba waxaa wanaagsan saacadaha fajriga waa saacado tajaarib badan soo maray caalami ahaana laysku waafaqsan yahay inay saxan yihiin marka saacadahaas inuu mar walbaba fajarka qofku uu iska fiiriyo ayaa wanaagsan marka taas weeye hadda intaas weeye laakiin habeen dambe iyo ka bacdi waxba isbedeli kara wallahu aclam su-aasha labaad waxaa weeye walaalku wuxuu yidhi jimaaca qofkuu sameeyey maalin ramadaan ayaa xaaskiisii uu qofku uu u tegey marka uu 2 bilood oo xiriirka ahaa uu awoodi waayey u soomi karo 60kii miskiin haddana uu awoodi waayey waxaana la sheegay in qoorta ay u suran yahay oo maalintii uu helo 60kaa miskiin raashinkooda maalintaas in lala sugayo oo iska bixinayo waa dhintay yaa la yidhi marka su-aashu waxay ku saabsantahay ninkii waa dhintay hadduu dhintay ninkii waxaa laga bixinayaa tarikadiisa qabla alirfi inta aan la dhaxlin leanna waa xaq ilaahay oo hantidiisa lagu leeyahay xaq ilaahay oo hantidiisa lagu leeyahay waa masaladaasna waxaa fiican in mar walbaba aan ku baraarugsanaan maxaa yeele waxaa badan xoolihii dadku marka ay dhintaan in hore laga qaybsado oo hore laga dhaxlo iyadoon la su-aalin xoolahan ama sake lagu leeyahay ama kafaaro lagu leeyahay miskiinkii dhintay ama xaj lagu leeyahay miskiinkii ama dayn lagu leeyahay su-aalahaas oo dhan laysma weydiiyo inta badan waxaa la yidhaha hebel iyo hebelow noo dhaxla xoolaha noo dhaxla noo kala tuura bis noo kala tuura waxaa ka horraysa in su-aalo laysweydiiyo xoolahan ama sake lagu leeyahay xaq ilaahay sida mas'aladan oo kale hadda kafaaradii ama lagu leeyahay miskiinka xaq bini aadam oo dayna ama lagu leeyahay xoolo uu soo dhacay xoolo uu soo daynsaday miskiinkii ama lagu leeyahay dardaaran ama jira wuxuu dardaarmay intaasoo dhan markii xoolaha laga bixiyo ka bacdi ayaa bannaan in la dhaxlo ayaa bannaan markaa ka bacdi in la dhaxlo wa ficlan waxaan isku baraarujinaynaa mar walbaba qof walbow inta aada nooshahay hantidaada wax kala bax carruur ha isku hadlayna carruur inay hantidaada ay wax ka bixiyaan qof walbow ha isku hadlay hadday wax ka bixiyaanna waa fadli iyo khayr ziyaado ah laakiin xoolahaaga ka cilbel inta aada nooshahay wax sadaqayso axdaas badan ayaan anigu la kulmay oon goobjoog u ahaa oo arrintan ku saabsan dhacdooyin badan ayaan goobjoog u ahaa dhacdadii ugu dambaysay waa bishan dhexdeeda dhacday odayaa dhintay odagaas markuu dhintay hal gabar uu ka tegey hal gabar ayuu ka tegey iyo gabar kale oo walaashiis ah oo ku aabbay hooyo ah iyo gabdho iyo wiilal kale oo ku aabba bis ah gabdho kale iyo wiilal kale waa ku aabba bis gabadhanina waa gabar shaqiiqa ah oo ku aabbay hooyo ah hal gabarna isagaa dhalay oo walaadiisa hal gabar yahay xoolihii waa la igu yeeray waxaa la yidhi kaala noo dhaxal xoolihii markaa dhexlayay waan u sheegay miskiinkan xaqullaahi haddii lagu leeyahay maalka ha laga bixiyo xaq bini aadam haddii lagu leeyahay ha laga bixiyo
miskiinka haddii xaj uu ku waajibay xaqii xajka halkaa hala dhigo markaa ka bacdi la dhaxlo dardaaran hadduu jiro dardaarankii hala oofiyo xoolihii markaa waxaa soo baxay hadda dayn lama sheegin waxaa soo baxay laakiin dardaaran miskiinku markuu xanuunsanayay ayuu dardaaramay boosas badan uu lahaa wuxuu yidhi booskaas xaafaddaas ku yaalla masaajid ayaan u waqfay ee masaajid hala iga dhigo haddaan dhigto gabadhii waa soo booday looma dhowaan karito booskaasu looma dhowaan karo maxaa dhacay waalidkii waa dardaarmay booska wuxuu yidhi hala iga dhigo masaajid waa waqfay xoolihiina dee thuluth waa ka badan yihiinba thuluth ka badana masaajidka u go-aysa markaa 3 meelood hal meel qofka mariidka ah ee xanuunsan sharciga xurriyad u siiyo inuu ku tasarrufo iyadoon loo baahanaynin dadkii waratada ahaa inay oggolaadaan iyo inay diidaan intaba looma baahan haddii thuluth ba uu yahay waxaani xaq sharciya weeye adiga oggolaashadaada iyo diidmadaada kuma xirna waa dardaaran ay waajib tahay inaad fuliso gabadhii waa soo istaagtay wadaadu haddaad xoog iga qaadi karto kaalay oo qaadayta aniga waa kusoo istaagay bis waay hadday meeshaa gaartay xoogkaagama qaadayaan hantida anigu dowlad may xukuumad mali ciidanna mali yani xoogkaagama qaadayo waa isaga tegay marka qisooyinkaasi qisooyin la mida waxayna barayaan qof walbow inta aada nooshahay xoolaha la sadaqayso wax yaray carruurta ku noolaadaanna anugu ma dhahayo carruurta hala qadiyee wax yaray ilmuhu ku noolaadaanna uga tag laakiin qof walbow inta aada nooshahay haddaad masaajid aada dhisan lahayd haddaad dugsi waqfan lahayd haddaad miskiin quudin lahayd haddii aada bangiga ilaahay wax dhigan lahayd inta aada nooshahay xoolahaaga ka ciilbeen ilmuhu kuma ciil tiri doonaan inta badan ilaa man raximahullah kuwa yaroo ilaahay u naxariistay maaha dad yaroo ilaahay u naxariistay mooye kuma ciil tiri doonaan owlaaddaada dhacdadaas dhacda runtii aada qalbigayga aan uga go-in ayay noqotay waa hal gabar oo keligeeda xooluhu xataa waa ka badan yihiin ayada miskiinkaa uu ka tegi waa ka badan yahay waa ka soo haraan nolosheeda xoolaha meesha lagu dhexlayay leanna waxaa weeye iyadii kala baray yeelatay xoolihii kala bar iyadaaba xoolihii yeelatay waa ka badan yihiin xooluhu laakiin adduunyadu waa sixir qofku waa dhega tirtaa waa indha tirtaa caqligana kala baray la tagtaa adduunyadu waa sixir adduunyaa sixirtay gabadhi waa u sheegoon waxaani waa xaq ilaahay oggolaasho lagagama baahna waa xaq ilaahay wadaaduu kaale xoog iga qaadinta hadda xoog iga qaadi karti kaale xoog iga qaad xoolaha walaalkan wuxuu leeyahay asigan qofku waayilku markuu yahay caqliga oo kale badana laga bixinaya biirmaani loogu talagalay marka badankaas ma laga tegi karaa iska dhaaf qof oo dhintayna waa nool yahay caqligeedu ya aye marka maadaama mid jirin soonkii oo dhan mir ma lahayn ya miir ma laha qofku haddii uu mir uusan lahayn waxyaalaha shuruudda soomku qofka ugu waajibo iyo salaada waxaa ka mid ah caqliga hadduu caqligii maqan yahay salaadan waajib kuma ahan soomkuna waajib kuma ahan walidaalika sidaas awgeed wax qadana laguma lahan inuu dib u soo qadeeyo leanna maskaxdii ayaa maqnayd nabigeena sala allahu calayh wasalam wuxuu rufica alqalamu can halaath qalinka 3 waa laga kor yeelay yuri nabigu sala allahu calayh wasalam waxna kuma waajibaan wax dembiyana looma qoro saddexdaas marka waxaa ka mid ahaa can ilmajnuun xataa yufiiq qof majnuun oo caqligiisu maqan yahay ilaa uu ka soo miiraabo waxba kuma waajibaan wax dembiyana hadduu maanta oo dhan dembi sheegayana looma qorayo marka qofkaas wax sooma oo lagu leeyahay ma jiro walaalkan wuxuu leeyahay anigoo xaaskaygii maalin ramadaan oo la joogo oo istimtaac galnay waxaa iga maadiyey midiya iga maadiyey mani wadi iga maada marka maalinkaas lagu leeyahay ma laga rabo wadi may waxa soomka jebinaya waa manida hadduu soo dejiyo kaas waa dadka soomka jebinaya laakiin walaalkaasi dembi ayuu galay ilaa waxaa masaladii hadda aanu ka hadlaynay wayo in xaaskaagii aad taataabato aada dhunkooto lama ogola adigoo sooman maxaa yeele arrinkaasi waxay keeni kartaa in soomkaagii uu kaa buro oo manidii kaa timaado ama hawshii weyneedba aad ku dhacdo
ayaa dhici karta nabigu sala allahu calayh wasalam wuxuu yihi man xaama xawla alximaa yuushiku an yaqaca fiih qofku hadduu beerta bowdkeeda warwareego beertuu ku dhacaa marka dambe beerta ayuu ku dhacaa uu yihi nabigu sala allahu calayh wasalam allahu aclam walaa kale wuxuu leeyahay anigoo sooman gad iska xiiraayo sakina ma laga taaba dhiiga iga yimid marka dhiigaas iga yimid maadaama gacanteeda aniga ku xiiraayo gad soonkaas miga furo marka walaa kale asan raacinayna fooshiisa wiisaqaadka anuu joogo wiisaqaadana uu yidhi wiil dhalinyara anuu ugu talagelin oo dhibta biyihi ku shubayo biyihi waa guda iyo gudbiyo marka asigana maxaa walaalka yidhi garka anigoo xiiranaya ayaa maaragtahay dhiig oo iga yimid sakiin aan garka isaga saray waa tii mar dhow aanu sheegaynay dhiigga sidiisaba qofku ama kasa isaga keeno ama isagu ha ka yimaado in badan waan ku celcelinay soomka ma burinayo soomkiisii waa ku jira walaal kale isagana muxuu yidhi wuxuu yidhi walaalkane anigoo weysiisanaya nin kale xoog dhegta biyo iga shubay buu yidhi anigoon u kasaynin uu shab iga siiyey biyo uu xoog dhegtii uu iga shubay qofka sidiisaba haddii waxaa lagu khasbo ilaa waxyaalaha soomka burinaya waxaa shardi ah in ikhtiyaarkiisa qofka uu ku sameeyo haddii qofku ikhtiyaarkiisa uusan ku samayn oo adigoo sii jeeda biyo shab lagugu siiyey soomkii waa kuu jira makaa burayo waxaa la mid ah haddii qori inta lagu qabto lagu yidhaha cun cuntada adoo sooman ama waa lagu dilahay cuntadii aa iska cuntay soomkaagina waa kuu jira lannu ikhtiyaarkaa kuma samayn waa wax dhiga lagu khasbay wax lagu khasbay nabigu sala allahu calayh wasalam xadiis saxiix wuxuu ku yidhi ummaddayda waa laga kor yeelay wixii lagu khasbay ilaa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun biliimaan marka ikraaha ma burinayo soomka khasabka quraankan waa quraanka jahriga ahaayo ishii saxidka ahaayo nadradaas marka aan fiirinayo ag joogo oo aniga iyada noo dhexayso fiirintaas aan fiirinayo soomkeyga ku buraayo waxma igu soo gaarayo cawradii fiirina iskalantaha iyada hadaan uu jahriga saarayo oo jinka saxidka ka saarayo waxna uusan u dhexeyin oo quraankii saaridiisa meesha si u fadhiyo nadrada fiirintaas oo fiirina aragtidaas wax dambi baa igu soo gaarayo macani saarayna walaalku wuxuu leeyahay gabar aan qur-aan saarayay markaan qur-aan saarayo oo jinkii aan kala dagaalamayo fiirintaas aan fiirinayo soomkaygu waxmay u dhibayo yiri maadaama aan fiirinayo qofka hadduu qur-aan uu qofku akrinayo aadaabta qur-aanka waxaa ka mid ah inuusan cawradeeda usoo fiirinin maxaa yeelay fiirintu wax daawo ah daawada iyadu shaqo kuma laha lugna kuma laha waxa wax daaweynaya waa tilaawadii qur-aanka la akrinayo ayaa wax daaweynaya qur-aanku u akri laakiin cawradeedii iyo jirkeedii iyo waa xaaraan ma fiirin kartid lama ogolo maxaa yeele fiirintu waxba ma daweynayso fiirin haddaad maanta fiiriso wax ay adiga inay dembi ku keento mooye wax cilaajka shaqo kuma laha waxa wax cilaajinaya wax daweynaya waa qur-aankaa ku akri laakiin ma fiirin kartid gabadha maadaama iyadii ay tagtay computerkaas inuu yahay oo meel soo sawiraayo su-aalkahay ayada soomkeeda wax mudhimaa saa'ilka walaalku wuxuu leeyahay gabdhaha iyagoo sooman baaritaanka lagu samaynayo oo gudaha laga gelinayo qalabkaasoo soo sawiraya waxaa gudaha mushkiladaha ka jirta soo sawiraya soomkii maxay u dhibi gabadhu haddii markaas ikhtiyaarkeeda oo aan la khasbinin oo dhakhtarka ikhtiyaarkeeda ay ugu tagtay soomkii waa ka buri maadaama gudihii ay wax u dhaadhaceen oo gudihii ay wax galeen ikhtiyaarkeedana ay tahay soomkii waa ka burahay marka waxaa habboon baaritaanka inay habeenkii ay ka dhigtaan gabdho habeenkii in markaas yacni kaamiradaa la geliyo wax soo sawiraysa habeenkii ha ka dhigato maalintiina soomkeeda ha ilaashato allahu aclam salaadii ma laga rabaa bisha ramadaan wuxuu yidhi iyadoo uur leh dhashay bil ramadaan markay dhashay waxaan ku rabaa salaadii ma lagu baray ma laga rabaa hadaan soomka soo qaleynayso xadiis waxaa jiray caaisha oo bukhaari saxiixiisa uu ku wariyey oo ibna caaisha ay tiri kunnaa nu'maru biqadaa'i sawm
ولا نؤمر بقضاء الصلاة وحنا الأمر جري marka dhiig uu nagu dhaco inaan soonka aanu soo qadayno laakiin salaada qadadeeda nabiga nama amrin sallallahu alayhi wasallam marka gabadhu hadday umul ay tahay ama dhiigga caadada uu ka socdo salaada inay soo qadayso sharcigu ma uusan amrin sida xadiiska Caaisha uu tilmaamayo marka salaadii wax qada ah oo lagu leeyahay markaas ma lahan laakiin soomkii dib ay ka soo qadaynayaan Allahu a'lam لكن شيء يقول لها ميقان وكورنه هو سمي مرة سلامتي سمو كل عين أقول لهن واحد أقول لهن وطن قوي شو جميل الكور بجاهل وكيف ورالكم حليه هدي وفكوا سمي وحياله صوم كبرنا لكن جاهل وها وإصلها صوم كوحد كبرنا أي وصلها horta jahliga la isugu cudur daarayo waxaa muhiim ah inaan ogaano laba qof oo baa jahli loogu cudur daaraa labada qof oo jahliga loogu cudur daarayo waxa weeye man dakhala fi al-islam wa kana qariib al-ahd bil-islam qof islaamnimada ku cusub oo mar dhow soo islaamay oo macluumaad badan iyo afkaar badan iyo ahkaam badan baa aan islaamka ka ogeynba قالوا ها هذا صار إسلام قف كاسد يراهو حاس كيجي أن تجي أنا وصومن ما أقول إسلام كونه مركز سنة يهاي حرام يهاي ما كبره يصام قال كي وصار إسلامي مرة وصار إسلامي وإسك قراء علي مركين لو يديم هذا قراءة ما أقول أنا مو حنا قف إسلام هذا كله وأصح قف كصوم كيسي كبره qofka labaad ee jahliga lagu cudur daarayo waa man nashaa baciidan can العلماء meel culimada ka fog uu ku soo koray meel baadiyaha oo culimada ka fog weligii geelaas uu iska raacan jiray arigu iska raacan jiray qowsaar uu iska ahaa meel diineedba maba arkinba meel diin lagu akhrinayo ka isagana haddii waxyaalihii soomka burinayay uu sameeyo soomku kama burayaan oo waa lagu cudur daari jahligaas laakiin magaalada muqdisho oo kale qof jooga oo dhahayo waan quraacday jaahilan ka ahaa ma lagu cudur daarayo qofkaas ama xaaskaygii aan ku dhacay ma aanan ogeyn inay burinayso bil ramadaan maalin ramadaan xaaskaygii ku dhacay ma aanan ogeyn magaalada muqdishona ku nool yahay qofkaasi waxa weeye ma lagu cudur daarayo jahligaas waa lagu ciqaabi jahligaas naftiisa ayaaba lagu ciqaabi oo leeyahay maxaad jaahil uga ahayd masaladan iyadoo masaajidii iyo madaaristii iyo macaahidii iyo xalaqaadka cilmigu meel walba ay ka buuxaan meesha aad ku noolay لأنه علم يلا برتاعه وفرض عين سيد الصلاة يواجب تاعي هي الدين تاعي من البرتاع أحكام تاعي علم الحال كنا يواجب كله يلا الله أعلم qofka hadduu cadaysanayo oo cadaygii markaas uu dhiig ka yimid isagoo cadaysanaya dee markaa hadduu horta uu dhiiggaas hadduu laqo soomkii waa ka burahay leanna macduuftii mooye wax kale ku daran macduuftii ayuu laqay waa ka burahay laakiin hadduu dhiigga iska tufo oo uusan laqinin soomkii kama burayo in badan aan ku celcelinay dhiigga kas la isaga keeno ama kaslaan la isaga keeno inaysan markaa wax soomkii aysan u dhibaynin marka su'aalihii marka waa iska soo gabagabaynaynaa maadaama inta badan ay u bateen su'aalo soo laalaabanaya يعني وحياله مركز قول كسافة كل شيء بسنة لا يا هذا الله أرنت الجماعة كسافة أما عورة وصوها القادم وكذا يا كل تاس مسألة ومدي حديث البخاري عن شيء لي والنبي صلى الله عليه وسلم ومدي وحلونا فين وحي قلب جدا ونفتي وكشة كيستين ما لم تعمل حديث وحي في علهان aysan u sameeyeen qofkan marka ficilaan ma sameeyeen gabadhan ayuu shukaansanayay sida walaalku yiri gabadhan shukaansanayay inuu yiri anigoon cawro iyo howladaas aanan sheegin ayaa maniyo iga timid ayuu yiri soonkiisii waa u jiraa maadaama
وياي واحد حديث نفسي حديث نفسي ومدد والله دافي أي النبي صلى الله عليه وسلم وبارك عليه ولكن سيدي qofka soo soo nuguleeyo walaadna waa ka toogay kama laga qalay kana ninkan kana soo gabadhina arrinta dadkan gabadha haddii qofku uu dhinto isagoo soom lagu leeyahay saama canhu waliyu oo markaas waa laga sooyay waxaa waajib noqonaya in laga bixiyo waa dayn fadaynullaahi axaqu an yuqdaa daynka ilaahay isaga ugu horeeya deymanka in la bixiyo marka qofka hadduu soom gabadh lagu leeyahay uu geeriyooday waa laga sooyay وتي هذا السؤال شاس وكجوان السؤال لمده وحي لم تهاي قبله باريتان كلو سوينayay oo gudaha wax laga gelinayay ay lamid marka hadii kateetarkii gudaha uu dhaadhacaysay loo gaano guduhu gaarahay daaqilkii joogku dhaadhacay soomkii waa ka buraya marka haday suurtagal tahay waa in habeenkii marka uu isticmaalo hadii uu xanuunsan yahay de waa inuu iska afuraba dib uu hadda uu ka soo qadaynayo maadaama xaaladaas uu gaaray وأنا هين بارتان. وجودها لكن وجودها لكن استعجل جريء. أبدا لا يوجد. هذا من بقصة أنا ياسي هذا وضع. لكن ما كان لكن هي وجودها لكن سواء. حبينا لكن ترى وقتها لكن ما كل شيء ما شو ثابت. أيوة. الله واسم بركل استعجل جريء هذا. أو مركز مسوي يوقفني. هذا من بقصة مرة هدي جديدة لكن واحد داخل في الجلية أو كمبيوتر هالنقطة أو كتابة هالنقطة أو سوى السوق وبرهن مين ودي له كده وقت الصلاة سوى بدها بلوك جليل وبرهن بس أنت عشان تشوف قبل هنا أول ما سنتين الله نقبله إلهي سبحانه وتعالى شو عمر هاي شو عمر هذا مش سؤال المويدين هاي هذا ما هو يدين هاي هاي تاسع ذاك الجواب يا مر شو عمره هذاك الجواب يا تاسع يا بخاخ سائلك ويدي باش بخاخ لو يقان وقفك نفط قبا واسكو بوفنا نفط يكون دغيسا اسكو بوفنا waa ku nafisaya qof بخاخaas marka way noocyo badan tahay nooc waxa jira soomkii burinaya noocaas uu yahay baashan oxygen iyo waxay ka kooban tahay oo hawa ah oxygen oo hawa ah waxba aan ku jirin iyo waxay ka kooban tahay waxyaalo biyo oo kala ah oo markii gacanta aad ku boofiso athar ama reeb oo gacantii uu marka ku reebanayso haddii noocaas ay tahay nooca oxygen-ka iyo ashyaada wadata dhibcaya hadday wadato soomkii markaas waa ku burahay soomkii allah marka mas'alada kateetarka hadduu qofku uu habeenkii hadduu isgeliyey labas hadduu isaga jeedo habeenkii uu isgeliyey maalin isma gelin haddii maalintii isgeliyey soomku waa ka burahay لكن هبين هذي تهاي لا بأس لأنه وحين وحكو جرى ومالين لقرينا يما ومالين تمركي لقرينا مركو بري لكن هبين كذو قرينا مرة حكم الدوام يا إنك الصواب الصوم كان من تراويح 15 سنة عدد كم يعترض سائلكم وحولي هاي عدد تراويح ده عددك ugu raajixsan oo ka sugnaaday ilaa xilligii saxaabadii dawladii markuu hogaaminayay Umar ibn al-Khattab 20 ragco ayuu saxaabada dujiyay iyadoo muhaajiriin iyo ansaar ay nool yihiin ayuu sayyidina Umar saxaabadii u dujiyay 20 ragco ayuu taraawiixii u dujiyay afartan madhab islaamku uu leeyahay ayaguna sidaas oo kale isku waafaqeen 20 ragco inaan laga yareynin taraawiix marka jumhuurta salafka iyo saxaabadu 20 kaas ay ku tageen waana 20 ka ilaa yoomina muslimiintu ay dukadaan labada xaramna laga dukado Makka iyo Madiina
dhowr goor anigu ugu dukaday waa 20kaas ijmaaca saxaabada xilligii Sayyid Umarna uu ku dhacay oo saxaabadu isku waafaqay muhaajiriin iyo ansaar marka 20kaas ayaa raajixa in la tukado الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه الكرام اجمعين اللهم آت نفوسنا تقواها اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا رب العالمين اللهم إنا نسألك إيمانا لا يجتمع لنا علما لا ينفع قرة أعين لا تنقطع ولدة نضج إلى وجهك الكريم مرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في جنة الفردوس ومرافقة نبيك محمد في جنة الفردوس اللهم اجعلنا من الفائزين المستبشرين اجعلنا من المتقين من النار يا رب العالمين في هذه الأيام والليالي المباركة الحمد لله صلى الله عليه وسلم محمد